السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلواada asxaabay musalsalkii afarta walaal qaybtii sidii lixdan iyo koowaad lixdanaad waxay noo maraysay wiilashii afarta walaal iyo saaxiibkoodii daroog in ay ka guuleysteen tolgaa iyo marasuusaan oo lagu bilaabay xaalufin hantiyadeed oo hantideed lagala wareegayo waa harika hooyadeed. run ahaantii caakif iyo marow suusaan dagaalkoodii hawada ayuu isku sii shareeray. waa mid ka sii darayo jaceylkii meeshuu ka baxay ay isu qabeen labadooda. wuxuu bilaabay caakif habartan in uu ku daro ciidda. waxay hadda maraysaa ninceyro weligii ceebka ma fogaadi cawey u daran tahay xaggee baan cugsadaa ay joogtaa. habartii iyo gabadheedii gurigu isaga soo baxayaan, boorsooyinkeedii soo qaadanayaan. cumar oo orijaan sawirra ka qaadayo ayaa wuxuu taleefonka orijaan ku arkaa fariinta aheeday aniga isdaqray ee cumar ima daqrin. oo orijaan ka tuurtay taleefoonkii tolkaa. cumar markuu fariinta arko orijaan uu ku xanaaqa, wuu soo baxaa gurigu imaana. hooyadiis suusan oo markii bixi rabto iyo gabadheeda harika wuxuu leeyahay maseedkan arag, gabadhaada shalay markaan ku dhahay aniga wax dhibaato uma geysan way aaminoysay, laakiin waatana sheekadii asxaabteeda iskuulka ay kula sheekeysatay ay ku qarsanaysay. habartaa dhehe waayahay hadda howl kalaan ujeednaa oo meel kalea mataqaanaa ka aadaynaa, laakiin anigaa la xisaabtami doono. cumar markii uu albaabka bixi rabo oo macsalaameeyo wuxuu arkaa boorsooyin banaanka yaala, 2 boorso iyo gabadhii hooyada oo murugsan. wuxuu leeyahay dhib maadin haysto, ma ay leeyihiin dhibna ma haysto. wuu ka tagaa. ayagana way baxayaan, waxay aadayaan guriga marow suusaan walaalkeed. markii ay tagaan harika waa gabadha aad taqiineen oo faraha ka falneeday. markay 2 maalmood joogaan gurigii, maalinta saddexaad waxay bilaabaysaa inay guriga baarato qol ka mida guryahii abtigeed. ayaga qaybta la dejiya qayb ahayn ay wax gudbee. markay baarato waxay ku arkay dahabkii ay gacanta ku qabsanay la soo baxee, qaanadina oo iska xiree. qaanada markay xirtay dahabkii la soo baxdaa waxaa usoo galay islaantii abtigeed qabay oo habararta u heeday. markay usoo gashay leedahay naaya maxaad qarine, gacantii gadaal marsanee soo bixi gacantaada maxaad qarine. harika gacanteedii aasi qasaba habaryarta usoo qabanee, gacantii kala furee, dahabaa ku jiro. qaanadee fiirinay naaya maxaa samaynaysa, ma yeeleedaa habaryar haya ceebaysan, aniga waa fiirinayay dhagahan waan ka helay. markii aan ka helayna waa sidaas darteed aan u fiirinayay, may wax kaleeto dhibaato aan damacsanaa ma laha. dhagahaadin waa kuwaana, ma yeeleedahay hooyada ayaa loo sheegayaa. qof xunbaa tahay, wax xunbaa taqaanaa, mana kugu deynaya sidaan. hooyadii ammaanay waxay leedahay gabadhaada wax ee samaysay waad aragtaan umaleynaa. marka anaga idinka ma ishanfacayno, haddee walaashay gabadhaada wax walba ku dheeshay. gabadhii leedahay la keenaya wejigaad iga fiiqda waad ceebaysay. sheekada dib ayaan idinkaga soo dhimastiri doonaa qaybta 62. wabilaahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.